السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada asxaabta igu xiran meel walba joogtaan. waa mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waa muuqaal gabdho badan ay codsadeen markastana igu soo laalaabto. marka maanta aan go'aansaday haduu Ilaahay idmo in aniga faa'iideeyo waa ilmaha xasaasiyada qabo waxyaabaha quseeyay ama cuntooyinkooda. marka kusoo dhawo ugu horeynta daayo way tahay channelka subscribe iyo saar ilaa garay muuqaalka ina share garay mar walbo waxaan soo gelshaa waxyaabaha caruurta qaasatan cuntooyinkooda cabitaanaadkooda waxyaabaha kor u qaadi karo aqligooda iyo difaaca jirkooda intaba. marka kusoo dhawo meeshaan waa meel wax badan ka faa'iido doontid haduu Ilaahay idmo. waan rajeynayaa hooyooyin badan in meeshan ay u noqoto meel ay aad ugu farxaan. hooyooyin badan oo waxaa jiro mar walba i weydiiyo cashir walba aan soo dhigo halkan igu soo qoro baa ka soo hadal caruurta xasaasiyada qaba cuntooyinkooda. gabdhahaas ayaa maanta fiidiyogan si qaas ah aan u talagalay aday ilmaha xasaasiyadiisa qabin kuma quseeyo laakiin inaad iska dhageysatid uu ku fiican yahay si wax badan aad u ogaatid. ugu horeynta ilmaha xasaasiyada cuntooyin badan ayay ku qabi karaan. waxay ku qabi karaan looska iyo qamadiga ukunta kalluunka waxay kale ku qabi karaan wax walba oo borotiin leh sida waxyaabaha ka samaysan digirta oo kale noocyadeeda kala duwan oo ah fuulka. waxay kale ku qabi karaan mooska strawberry-ga qudaarta qaar badan ayay ku qabi karaan. marka hooyo walbo muhiim waxa ah in ay kala ogaato cuntooyinka caruurteeda xasaasiyada ay ku qabaan iyo cuntooyinka aysan ku qabin. muhiim maahan waxaan oo dhan ciyaalka in ay ku qabi karaan xasaasiyad laakiin waxaa muhiim ah hooyada in ay fahmi karto nooca xasaasiyada cunugeeda uu yahay. ilmo waxaa jiraan xasaasiyad ku qaba biicada ay joogaan sida dufta oo xayawaanaadka mukulaasho kale ama yaanyurta kale qaar ku qabo xaafadaha joogaan. qaar waxay ku qabaan boorka guriga waxyaabaha qadiimiga yaalay. waxay kale ku qabi karaan geedaha waxay kale ku qabi karaan sida ariga geela waxyaabahaas oo kala gedisan. qaar waxyaabaha arfa xasaasiyad ku qabi karo. markasta xasaasiyada waxay ku xiran tahay nooca ay tahay cunugaaga uu qabo. fahmaysaa marka waa inaad soo baartid cunugaaga xasaasiyada cuntooyinka ku qabo. hadda hadda Muqdisho kale waxaa ku yaalo meel xasaasiyada lagu baaro cunugaaga cuntooyinka ku qabo iyo wax walba oo keeni kara xasaasiyada cuntooyinka laga helo ama hadii kala xayawaanaadka biicada waxaas oo dhan waa lagu sheegayaa. marka waa muhiim in aad soo baartid oo aad ogaatid xasaasiyada gabdhaha dheelsanina waa wax khatar aad u ah ilmaha qabana. dhammaan waxyaabaha borotiinka lahoo dhan lama sii karo maadaama ilmihii ay ku jiraan waqti koriimo aad ay ugu adkaanaysaa hadii la siiyo heer dhimasho ee xitaa qaarkood ay la gaartaa. qaar waxay la gaartaa heer xubnahooda kale oo muhiimka ah ay u sii gudbiso sida beerkii keliyihii sanbabada xabadka oo kale meelahaas u gudbi kartaa. marka waxaa muhiim ah in waxaas oo dhan ay kala baratid oo mar walba ilmahaaga cuntooyinkooda aad ogaa kartid xasaasiyada ay ku qabaan. hadii aad danyar tahay oo aysan kuu suuroobeynin in aad soo baartid waayo baaritaanka qarash badan laga yaabaa inuu kaaga baxo. waxaad sameyn kartaa cuntada maalinkaas aad siinaysid ayaad ku fiirinaysaa cunuga. muhiim waxaa ah hooyada inay kala barato waqtiga la ogaado xasaasiyada caruurta ay qaadi karaan waqtiguu yahay. tusaale ahaan ilmaha 6 bilood haduu jiro waxaan aniga dadka kula taliyaa si cunugaaga dhibaato badan uusan u gaarin ka hortagna aad ugu noqotid in aad ku bilaawdid hal cunto asbuuca hore si aad u ogaatid cuntadaas
in cunugaaga oo xasaasiyad uu ku qaadi karo. xasaasiyada calaamadeeda waxaas oo dhan gadaal uga tegi karnaa, laakiin halkaas cunto waxay ku sahli kartaa in aad calaamadaha soo socdo aad ku ogaa kartid. waxaa kale oo aad u fiican ugu yaraan 3 maalmood in hal cunto aad ku fiirisid asbuucdaada ku fiirinayn, kabacdi isbedel ayaa ku dhacayo cunuga xasaasiyada qabo. hadduusan qabin xasaasiyadna wax isbedel ma ku arki kartid. markasto waa muhiim hooyada taas inay ogtahay, waxaana u sahlanaanayo markii dhowr nooc oo cunto ah aad inta isku dartid oo hal mar aad u saartid dabka misana aad siidid isbedelka waaweyn oo ku imaan karo jirkiisa dhammaan falcelinta uu soo celinayo ayaa aad kaaga yaraanayo. marka hal nooc oo cunto ah aad ku baraaweysid kadibna aad ogaatid inuu xasaasiyada ku qabo iyo inuusan ku qabin. markasto muhiim waxaa ah cunuga xasaasiyada qabo in la siiyo cuntooyinka aan xasaasiyada lahayn. fahmaysaa? xitaa cuntooyin badan oo waxaa laga yaabaa xasaasiyada cunugaaga uu ku qabo laakiin ka yar xasaasiyadii uu ku qabay, kuwaas xitaa ka fogay ilaa jirkiisa uu soo xoogeysanayo oo xasaasiyada ay ka baceyso. qudaartoo kale waxyaabo badan ayay ilmahaaga xasaasiyada ku qabi karaan, waxyaabana ma ku qabi karaan. marka hooyada shay gooni ah aan dhihi kara hadda intaasi xasaasiyada ilmahaaga ma ka qaadayaan ma jiro, waayo dhammaan qudaarta, dhammaan cuntooyinka leh borotiinka, dhammaan furuudiyada, waxaasoo dhan ilmaha badankooda siyaabo kala gedisan ay xasaasiyada ugu qabaan. kuwa waxaa arkay mooska xitaa xasaasiyada ku qabo. marka muhiim waaye in aad baartid cunugaaga. haddii aad baaritaan aad u samey karin kala ogaaw adiga oo guriga uu sameey oo ku baar guriga sida hal cunto kaliya inaad u siidid 3 maalmood, kabacdina aad ogaa kartid xasaasiyad inuu ku qabo iyo inuusan ku qabin. marka hadduusan xasaasiyad uusan ku qabin ka jooji. xasaasiyada calaamadaha lagu garto waxay yihiin in ilmihii markasto uu qufacayo, mar walba oo cuntada la siiyo nabro yaryar oo badan oo jirkiisa kasoo baxayo. ilmaha qaar xitaa way xogaan, ilmaha qaar matag ay leeyihiin, ilmaha qaar codkaa xirmo, ilmaha qaar wejiga ka bararaan, ilmaha qaar indhaha cuncuno, ilmaha qaar sanka cuncuno, ilmaha qaar dhigaha cuncuno. waxaasoo dhan ay leeyihiin. kuwa qaarna nabro aad u badana kasoo baxo oo guduud ah. marka waxyaabahaasoo dhan waa calaamadaha lagu garto. caanahoo kale waxaa aad u fiican, caanooyin waxaa jiro oo xasaasiyada ilmaha qabo loogu talagalay oo la siiyo. kuwaas aada meelaha caanaha lagu iibiyo tag, dadka khibrada u leh ama hadii kale dhakhtarka igu qore cunugaaga xasaasiyada loo qabo hasiin caano borotiin leh. haddii aad istiraadid cunugaaga borotiin ma helayo, cuntooyinkan wax kuriima ma ka helayo, waxaan siiso wax dhibaayo dhowti ma ku arkaysid, cunugina uu kaa qabo allergic, waa dhibaato. sida aan kusoo sheegay usoo kala ogaaw kadibna kii munaasabka ku asiiso. fahmaya cunugaaga waayo waxaanoo dhan lagama yaabo inuu xasaasiyad ku qabo. waxaa laga yaabaa 3 nooc oo cuntada kamid ah ama 3 waxyaabada borotiin ah inuu ku qabo, kabacdina inta kaleeto caadi uu ka yahay. marka waxyaabo badan oo waxaa jira caruurta Soomaaliyeed hooyooyinka qaasatan aad uga qaldan. caruurtan dhibaatooyin badan ay soo gaari karaan, mushkilo ma laha. cunuga markii uu xoogeysto asaga ayaa yacni xasaasiyada way ka baceysaa oo si dabiici ah ayuu jirkiisa usoo kabsanaya. laakiin adi mamnuuc waxaa ah cunugaas inaad ka joojidid waxyaabaha xasaasiyad keeni kara. hadda ukuntoo kale qeybta cad aad ay borotiinka yacni xasaasiyadeeda aad ay u badan yahay. qeybta jaalaha ah ayaa fiican, badanaana ilmaha xasaasiyada qaba xitaa dhib ma kasoo gaaro qeybta oo yelowga ah oo jaalaha ah oo dhexda ku jirto, laakiin qeybta cad xasaasiyadeeda ayaa aad u badan. marka waxyaabaha kala barta oo yacni keeni karo xasaasiyada iyo waxyaabahan keeni karin waa kana videogan waxaa ugu talagalay gabar kasta oo haysato caruur yaryar oo xasaasiyad qabo iyo caruur waaweyn. inta ilmaha waaweyn xitaa qaar xasaasiyad qabo, marka ka faa'iideysta ilmahan biyaha cad aad loo siiyo, fitamiinaad munaasab ku ahna hala siiyo, dhaqaatiirtooda kala tashta.
fitamiinaadka uu u baahan yahay cunugaaga. waa muhiim fitamiinaadkan inaa ogaato. waxaan rajeynayaa hooyooyin badan inay waxyaabo badan ay ogaadeen. muhiim waxaa ah cunugaaga cuntada uu ku qaban gabaray in aad ogaatid xasaasiyada. muhiim ma aha cuntooyinka inaan kuu kala sheego, waayo ilmaha isku mid ma aha, jirkoodan isku mid ma ahan. ilmaha way kala gedisan marka adiga tijaabi cuntooyinka cunugaaga xasaasiyad uu ku qabo, kana jooji, hasiin, mamnuuc ayay ka tahay. waa ay dhibaato intaas ka weyn ayaa soo gaari karto. marka fideoga intaana kusoo ekeenayaa. hadduu ilaahay idmo, haddii aad igu cusub tahay subscribe iyo saar channelka iyo like garay muuqaalka, ugu yaraan 3 qofna u share gareey si hooyooyin badan ay uga faa'iideystaan. wixii fikradana qaybta hoose oo commentiga noogu reeb. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.